agaasimaha guud wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta u daafuray shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga tababar ku saabsan tayeenta shaqaalaha. xasan maxamed saciid samatar agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya oo weliyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaasi Cali Aadan ayaa Muqdisho ka daafuray tababar sare loogu qaadayo xirfadaha hogaamineed iyo wada shaqaynta waaxyaha kala duwan ee wasaaraddaasi gaashaandhigga. agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cali Aadan oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in shaqaalaha looga baahan yahay inay ka faa'iideystaan tababarkani sare loogu qaadayo tayadooda. marka anaga maamul ahaan waxaan ugu talagalnay facility-ga inaan diyaarino kalaaskan la yimaado koorskan aan ka faa'iideysano 5 maalmood socona shaqa kale xafiiska kale duties-ka laga rabo laga maro maalmahaas koorsku socdo. agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk Soomaaliya xasan maxamed saciid samatar ayaa daafuray tababarka waxna uu tilmaamay mar uu ka hadlayay in ay ka go'an tahay ka shaqaynta sare u qaadida aqoonta iyo tayeenta shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga. shaqaalahana looga baahan yahay inay si dhab ah uga faa'iideystaan muddada 5 cisho ee uu socdo tababarkan. wasiirsigaani waa mid aad u wanaagsan saan u arkay qorshihiisa ka dejiseen waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan. waxaan leeyahay shirku waa noo furan yahay hal shay ayaan idinku codsanayaa inaad si niyad sami leh uga qayb gashaan oo kulamada laga maqnaanin. fadlan waxaad qabtaan kaliya meesha aqoon kororsi kaliya maaha waa mid xirfadiina kor u qaadayo xirfadiina hogaamineed. tababarkani sare loogu qaadayo tayada shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga waxaa iska kaashanaya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya, midowga Yurub, Sweden iyo UK.